السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا الصوماليات مالك استوجكتان يسوى المقال كان يدين سو جاري هداد يوتيوب إيجاد دعوانيسو هداد فيسبوك بيج بيجاد دعوانيسو دمانتين بقى وحن الله هاي سلام قلبي خسوا جود إيجاد قدومه أنت كدب سيدا قاركين لسعتان ولا لا قالجا مالمي يقدم بيه وحن سفر وها أما أنا السفر بقى قيبة كم إذا قبل كشبه لذا دحاء هيرشبه gaarahaan caasimada Jowhar miyiga agaarkeeda u dhow maadaama aan dhaqanka Soomaalida soo gudbiyo meelo badan aan tago hadafkaygu uu yahay sida ay markaas Soomaalidu dhaqanka ugu kala duwan yihiin waxba ay ku kala duwan yihiin in markaa dadka Soomaaliyeed ee reer magaalka aan uga faa'iideeyo ama ay u kala bartaan gobol walba iyo sida looga dhaqmo sida aan muuqaal horeba halka uga soo diyaariyay hadba maanta waxaan joogaa miyigi baan joogaa waxa idin muuqda dabcan guriyo aan dhaqanka miyiga ama baadiyaha sida hore lagu aqoon jiray ama qaarkiin ba garanaysaan guriyo marka guriyii la yaqaanay idima muuqdaan hadaba miyigan aniga aan imid gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan miyiga ku xeeran ama ku wareegsan Jowhar miyigoodu sidan ayay u dhaqmaan halka hadda aqal ba ka muuqda ama guri aan iraahdo guriyo yar yar oo qaarkood carshaan yihiin qaar baco la dhisay dadku reemiga horta waa dad sidan u degan oo koox u degan dhammaan baadiyaha inta meelo badan baan ku socday yaani meelo badan oo gobolo badan wax ka soo gudbi jiray baadiyaha reer bay u degan yaani reerkiiba hal ama gurigiiba hal meel buu ku yaalaa marka cabaar socoto ayaad guri kala arkaysaa laakiin gobolkan Shabeellada Dhexe in badan oo socday waa dhif iyo naadir reer keligii meel degan waa la wada degan yahay oo baadiyo yaani waxaan moodaa inay tuulo wada yihiin tuulana ma ahan waa dad xoolo dhaqataa waa dad beeraley ah marka dadku ayaga shaqadii sida caadiga noloshii miyiga u kacaya oo beerahoodii aadaya oo xoolahoodii raacanaya ay hadina qaab tuulo camal ay u nool yihiin marka halka idin muuqata ariyar baa reerka ugu xareysan badana reeraha halkan beeraley ay u badan yihiin gobolkan meesha idin muuqata waa suuligii ama musqushii reerka runtii waa arin la yaab leh hadad arki jirtay suuli la soo xirto ama albaab leh waa dhis yar oo meesha laga dhisay iyo mar yar lagu aadiyay taas waxay ka turjumaysaa ammaanka meesha inay meel ammaan leh ay tahay hadana aan dadka yaani aan la isku mashquulin oo la isgaranayo yaani aad ka cabsi qaban in lagu soo eego halkan isagana waxa ku xareysan ariyar baa ku xareysan sida aan idin sheegay dadkan beerley ay u badan yihiin boqolkiiba يعني أنت أقول بدن برهر أم بير لهين ما بكوي على ماشي أما ما بدقنا أما أنا لما أنا كل مسيد أقول بدن وربحنت اللي يوصي ضدك وحي أبدين بيرلي صدق الله وحي الله رغدا الله ذا marka sida dirta aragu yar yahay iyo geel horta ma ba arkin marka meesha waxa ugu badan dadku waa looley iyo beeraley muhiimada kaliya aan ka baran karna waxay tahay oo ugu weyn dadku inay u nool yihiin qaab yaani koox oo qofku yaani qaarkiin xataa marka aragteen waa tuulo aad dhigi kartaan laakiin tuulada waxa lagu garanayaa inta badan sidii lagu bartay inay meelo meherada maqaayado waxa la ganacsi dhan meeshan kuma yeelan dadku Jowhar ay wax ka doontaan marka runtii maanta halkan ayaan imid waxyaabo inta badan aan raadinayna waxa ahayd oo in badan aan baaray bal reer kaligood meel degan oo xoolo dhaqanaya taasna ma ahna arkin runtii aad baan ugu faraxsanahay gobolkan inaan imaado in badan ayaan ku haminayay gobolka Shabeellada Dhexe in kastoo meelo badan aan ka tagin hadana farxad bay ii aadna halkan imaado hay iska war magaca nimca leedahay nimco xasida أنا سدا ما شاء الله حاجة أنا وسافرنسا جوهر مركب ملوك بام سجاري لوك مدارة بجاد راعة مدارة ولوكا كلوينا أنا سدا ونوعين لايلوات ما شاء الله مركب جوهر جيسي أنت أكل الله صعدة جوهر 10 كيلو عمل جرتا 10 كيلو قفك صعدة أنتو سعكرة يا قفك ساعة هل ساعة ولوجين ساعة أنا مركا حاجة جيده حال لوكسو بدليا راشين قدار لوكسو بدلا هل كان لا ذا كوبدن مي أرمله أري لا واسكت أجرا لكن لا ذا بدن أنا مركا حاجة جيده مدة ركنا أو جيني سام سوق جيزنا سوق على ماذا لا فريسني مسقلا أودي بيسا أنا لا فريسنا كم بدي أنتي يدين سا سيالكم تونكم بأقول بدن أو سوماليا $1 أو كير هاي غير بدوا كورتشيني الله كل قرب قلا مع السلامة جوهر يوصلن هل كانوا حد حجة ماشي مقعد معها ماشي محل هرت مقعد اللي ذي قال لي هذا
marka maasha Allah farxad bay tahay libiga ku lugaynayo jawhar marka waa baadiyihii oo iska dadku isku dhawaadeen baadiyi la kala fogfog iyo arki jirteen waa baadiyi la isku dhaw yahay tuulo camal ah halka wada marta halkan cida degan waa mudul iyo guri iska caadi ah mudul ariga ma kaaga leexdaa maxaa dhacay iska leexaa caadi haye maxay ugu diidaysaa in ariga duubo hee ma la aqoonsana arigina ma la fiirsana ma la ilaasana halkan reerkan waxaa ugu xareysan ariga yarka halkaa ugu xareysan halkaana loodii baa ku xareysan oo la maalayo halkaana waa reerkaa degan mudulkaasay degan yihiin iyo aqladaas haye erigina ma idin tahay maasha Allah ciidaha waxay u degan yihiin koox koox bay u degan yihiin meesha xawalaha waxaa degan xawalaha degan qayb qaljacla degan qayb abjala degan waxa degan wala degan yahay aniguna waan ku soo bir hawr gidri idaaro basakm ayagana way joogaan anigu mid kamid ah wakiilo ahay yaa mise labadaba laakiin reeraha Soomaalida inta kaliya ma ahana labada kaliya ma ahana ay ka badan yihiin ma ogid ma aan garanaa inta kale ma garanaysid wax kasta Soomaalinimada ka weyn Soomaalida waa isku wada Soomaali dadka dhan waa wada walaalo libiga ma sha Allah kan ma wada ku taala wada ku taalo baraka caadi halkan reer baa degan saa u jeedaan saxaas qaaliga naka reeraha ayaanan ku xadgudbin bal waxaa soo dhan wada xoolo dhaqato mudul iyo aqal waa baadiye casriyeysan halkan loo baa ku jirta la iska waran see tahay magaaladan kaasoo salaanay ما شاء الله halkan waa xero lo-aad saa u jeedaan xero lo-aad baa halkan ku taala waaw gurigeena ah والله جاري ما شاء الله ما أنت مالك قبيسة عيالك اسك عيارين هيا من كان من كان